وقتي إن واحد كشكي سي من عبر أمور أضو دير رنا هانتي تطفر بدن أي مركا وبحنا يعني وحكوا غدا هينو كهذا الله إبهاتوين كودمada kala lagala kulmo in inta badan hada dhalinyartu waxay u safraan koonfur afrikana sida aad adugu ba magacawday ilaa iyo 5 wadan ayaa sugaysa oo Kenya joogna ugu horeyso oo xabsi ay kala kulmaan iyadoo laftigeeda soo galitaankeediiba ayaa waxay tahay caqabad kale waxay tagaan Tanzania oo iyadana ka wasii daran waxay sii marayaan Malawi iyo waliba sidaas oo kale Mozambique in safarka inta leeg waa silaa in badanna way ku rafaadeen ma jiraan marka hay'ado kale oo dadkan garab ku siiya oo soo daaya markay meelaha ku kulmaan ama markay dhibaatooyinka ku jiraan sababta hadda dood u dambeysay la qabanay dadka Soomaaliya ka cabaaday waxay dadka muhaajiriinta ku xiran dalkaasi Liibiya ayaa aad u socday qaar ba xataa nafta inay iska saaraan ay ku sigteen in muddo laga doodayay marka ma jira dad markaas u tafaxaytay in baladi way jirtaa oo wax maanta ka joogsanaya ma dad u tafaxaytay in umurta wax qabtaan ma jirtaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta dambiyan ka sheegnay haddaan dhahno waxaa jira qof u tafaxaytay in Soomaalida muhaajiriinta uu ka badbaadiyay dhibaatada la kulmayso dadka Soomaaliyeed waxa inta badan lagu sheegi karaa inay yihiin dadkii la yiri ceelna uma qadna cidna uma maqna markaan saas leeyahay waxa waaye governmentii oo permanentii dawlad joogta ma lahan in dawladda ku meel gaar ah oo usually dhaqanka Soomaalida ka mid noqotay in sanad kasta la soo sameeyo aan ka ahayn labo hay'adaha adduunka u qaabishiisan qaxootiga sida UNHCR oo kale qofka bini'aadamka markuu register ka yahay oo ku sugan yahay xarun ayada ay leedahay ama area iyada markaas ay ka register garaysantaa laga yaabay qofkaas inay caawiso laakiin qofiisan UNHCR aysan warba u haynin ogeyna meesha uu u socday meesha uu ka yimid baahidiisa qaxootinimada aan soo bandhigin ma u maleynayo in iyada laftigeeda u maqnaan doonto dhanka labaad waxaan rabaa xabsiyada laga sheegayo dhanka Liibiya kala hadda wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dadka ay ku jiri la yihiin qofkii bini'aadamka qol yariisa waxa lagu geeyay 300 oo qof almost naqaska cariiri uu ku yahay cudurro kala duwan xabsiyada waa laga qaadaa oo neefta ku ka dad marka waxa la sheegay door bidaaya raashinkii loo keenayo ka codsaday dadka raashinka u keenay raashinka fadlan sun iigu soo dar san walba nafta iiga tagto qofkii markuu isku kallifo raashinkii uu cunayay inuu sun loogu soo daro almost naftiisi waa ka sabray meeshii uu ka soo cararana waxay ahayd kud oo Muqdisho ahayd waxaana ka socda madaafiic iyo hubiyaal xabad meeshuu u socdayna markuu arka xaaladda ka jirta wuxuu leeyahay walba adduunyada inaan ka tagaan door bida arinta saasa marka dhalinyarada Soomaaliyeed waa waxa inta badan ay ku dhacdo sababtoo ah xeerarka adduunka ka jira waxa way qofku markuu san qaangaar ahayn inuu san xabsi gali karin sidoo kale waayeelka inuu san xabsi gali karin dumarka qaxootigana birmageeda lagu tilmaamaa oo waa aad usually adduunka dhan laga xushmeeyaa marka qofka dhibkan arkaya una soo jooga inta badan la kulmo waa dhalinyarada marka waxay u baahan tahay in la bacrimiyo in aqoon la siiyo in daraasaad laga siiyo waxay la kulmayaan waxaan aad u doorbidi lahaa maanta in aad u soo bandhigayso barnaamijyo aan hayo pictures oo ka sheekeynaya dhibaatada tahriibayaasha ka jira in badanna in TV-yada laga arkayaan jeclahay laakiin hadda inoo suurtagelayso in maanta la daawado balse Soomaalidu waxa way mar kastaba waa ay ku dhiban tahay safarka tahriibka ay ku maqan tahay oo macna darada waxa jira dad fara badan oo daawadayaal ah cibaaro waxana la isweydiinayaa su'aalahan waxa kamid ah qof waa inta ka baxaya baddaas u jeedaa waxa laga yaabaa 4 cisho ka hor in 120 qof ay ku geeriyoodeen isagoo og doontan macbilka alwaaxa la sameeyo inay mashaakil leedahay sidoo kale markaynu tagno xaggaas iyo dalkaasi Liibiya 100 qof ayaa ku dhimanaya iyagana sidoo kale haddana dadkii way ku indha adag yihiin Soomaaliya waxa jira baroorto erguga ka weyna balaayada ay abuuray waxa la isku haystaa oo inta badan la weydiiyo dadkiinan baarayaasha xagga ku aadan taariibayaasha umurta inta leeg oo la isweydiin waxay tahay war dhimasha laga soo cararay dhimasho kale waa loo jeedaa dadkan maxaa ka si ah waxa la isweydiin waxa leeyahay sababta dadkan soo madfac kama soo cararin haddana badiiba ku harqanayaan ma jirtaa marka iyada laftigeedu in cilmi baaris umurta lagu sameeyay oon ka ahayn nabad darrada ay ka soo cararayaan dilka kaliya waayo dil ma dhaama leeyahay
iyagaaba naftooda iska dilaya haye arrintaas iyada ma wax baaritaan ama laga sameeyey bismillaahi raxmaani raxiim waxaan maqli jiray maahmaah soomaaliyeedoo aad qaali u ah oo ah geeridii galbeed ka dhacdaa guntigaaga ka eg marka saas la leeyahay aniga waxaan u haysan jiraba dagaallo marka meelahaas ka dhacaan oo kale ka filo meelo kale laakiin geeridii badda laga sheegay qofka mar labaad hadduu u harqanayo mar labaad xoogaa guntigiisayba ku jirtaaba midda labaad waxaa dhaca kenya dalka kenya on hadda ku suganahay maalin dhaweyd waxaan cilmi baaris ku sameeyey magaaladiisa mombasa ee ku taalla dhanka xeebta waxaan kula kulmay dooni yar oo almost aan ka badnayn 2 mitir doonidaas waxay ka samaysan tahay alwaax matoor yaroo laashaana saaran waxaana almost la saaraya dad gaaraya 200 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah haweenna ma qaadaan odayaalna ma qaadaan labadaas boqol oo dhalinyarada markaan weydiiyo meesha loo wadana waxa la sheegay in loo wado magaalada Mozambique dalka Mozambique si halkaas South Africa looga geliyo dhalinyaradaasi warsado waxaan ku yiri badda dhibaato intaan la egay leedahay walba hadii aad naftaada risk gelinaysid maxaa dhulka ugu mari weysay qof walbood warsato wuxuu ku leeyahay Tanzania waa cadawgii Soomaaliya oo hadayna qabtaan almost jir waxa gadmaaya dharkan wadano iska dhaaf wajigeeni qofka Soomaaliga marka waxa haysta dhibaatada ugu koowaad waxa waa turko in adduunkii aan ka noqonay dad caana labo booliska iyo traffiga iyo maxaan ku raacay city councilka oo shaqada ku leeyahay immigrationka inay qofka Soomaaliga sharci ha haysta ama yuusan hayn meel kasto kamid Afrika markaad marayso in target laga dhigto oo lagu weydiiyo sharcigaaga qof jidka maraa iska weydiinay taasna waxa sababaya in looga bartay sharci la'aan Soomaalida muhaajiriinta si lacag bribe looga qaato hadii laga waayana intaas kar loo xiray xabsi lagu dhigay waxa laga yaabaa marka xabsiga noocaas oo qofkan ka carrayo Tanzania ku yaala inuu ku jiro 2 sano muddo ka badan isagoon maxkamad la soo saarin dalkiisina repatriation lagu sameeyay dalkiisina loo celinin hay'ad u doodo xuquuqul insaanana aan loo ogolan in soo booqato habeen iyo maalin laga yaabo waqti kamid in soorta ugaalida la yiraahdo lagu siiyo qofku marka almost waxa way in risk way xabsigaas waxa loogu dilay jirmi ahaan marka qofku waxa ku dhacay waxa la yiraahdo malnutrition jirkii uu ka dhimana awood uma sii yeelanayo inuu safro shakhsiyan wax badanna waa ka gudbaa midda labaad waxa waaye Mozambique iyo Zambia waa ka sii daran yihiin dalka South Africa Tanzania waa ka sii daran yihiin sida Zambia kale askarta mar haday qabato qofka Soomaaliga wax negotiate bal xataa uma lahan ninka dhalinyarada treatment waxa loo gudbinaa qofka xabsiga loo gudbinaa oo dhibaato far badan oo kala kulmaayo sidoo kale Mozambique markay qabato ninka Soomaaliga waxa ugu weyn ee kala kulmaan waxa waa sharci haysa ama haysan language barrier wax la yiraahdo oo luqad Portugal la yiraahdo ku hadlaan Soomaaligana waxa laga yaabaa inuu English jajabsi ku hadlaayo marka iskeeni waayeen waxa laga yaabaa qofka soo sharcigiisa dhameystiran yahay inuu xabsi u gala darteed intaas markaan ka gudubno dalka Zimbabwe la yiraahdo oo si gooni aan xiriir ula sameeyo tagay xero weyn oo ku taala Harare dawladda Zimbabwe iyo askartii Zimbabwe qofka Soomaaliga markuu qabto inay xiraan waxa ku kalifay sababta waxa ku taala xarun weyn UN-ka aqoonsaday qaxootigana loogu talagalay oo qofkii la qabto loogu talagalay in xiraas qaxootiga la geeyo waxay dheen almost markaan bishii cover gareeno in ka badan 304 qof oo 400 oo qof oo Soomaaliya oo u gudbino xaruntii ku shaqada lahayd UNHCR oo UNHCR ay soo dirto dad cilmi baaris oo dadka soo tirkooba xarunta dilay ma cidi kuma jirto waa dadkii iswada dhiibay oo dhan qofna ma ku jiro xaruntaas markaan dib u sii baarno waxa ogaana ku lahaa dadkan markaan xirada galino oo sharciyadii iyo alaabtii iyo agabkay ku noolaan lahayn aan siino qofkii one day later alaabtii inta xaraasho wuxuu u sii gudbaa dalka ku dhagan South Africa ma sii joogay marka ceeb badan ay Zimbabwe kala kulantay hay'adihii ku shaqada lahaa oo xarumahan u furay yaa waxay kalifaysaa marka qofka markay qabato ku inay xirto laba inay confirm garayso inuusan gudbayn saddex xataa dhaqaalaha dawladda inay inta ka qaado ay xarunta gees loogu talagalay